gudoomiyaha degmada Garbaharey mudane Iimaan Cadow Kaarshe ayaa daahfuray xarun dhalinyarada degmada Garbaharey ay ku shaqayn doonaan iyo garoon ay xilliyada habeenkii ku ciyaari doonaan. Xafladda lagu daahfurayay dhismaha xarunta cusub oo ay ka soo qayb galeen dhammaan ururada bulshada rayidka ah ayaa ay ku ammaaneen maamulka degmada ee ugu horeeyo gudoomiyaha degmada Iimaan Cadow Kaarshe waxqabadka iyo siday uga go'an tahay inay dhalinyarada helaan goobo ay iyagu maamulkeeda leeyihiin. Aku ada yang nak aku kan dia ada, berapa season, berapa sekolah orang, industri dah sangat sahih, jadi ada lain, biasa sebenarnya orang itu sosial lain, jadi orang tadi yang mustahil. Hal itu faham saya, أنا نوصل ليجرون ونهوي بعوي، وأنتم وعارفين أنا أقول بحمي. ولكن كمان هذا ليش يجري؟ أنا ما مانع نسيب كذا أنا حلو. وأنا قبل وعدنا ما مانع عندي كذا الغالة برنامج كان صار أنا حلو. هذه أربعون علينا. هاي أنا يرى وحيوبها هم هي يد الرئيس وده هو اللي جعل يصير. أنا كفلنا أنا كذا الغالة بتاعنا كنا جعلنا. وهو ينجبوا يا بس يجوبيتان كذا كنا أنا كذا صيادة حاولت كذا لونه. وعندنا أنا أسوق ويننا. عدوى الله عاوي أنت صيادة وتعطوكم الحاتي. أنا أقول كيني هذا المساك إلا فوق ويجيبوا الوشية اللي يجرنا يجيبوا الوشية لما يجرنا وضب كي كذا تو كم يتعي مجالات الأولاد وكشي دوتو وخصن دوتو شرف وقوان يأكل وين عضو فرحسن. gudoomiyaha degmada Garbaharey mudane Iimaan Cadow Kaarshe oo goobta ka hadlay ayaa sheegay tan iyo burburkii dawladda dhexe ee Soomaaliya inaysan dhalinyaradu helin goobo ay iyagu maamulaan ama u noqoto shaqo abuur loona baahan yahay in mar walba la garab istaago dhalinyarada. laga furay laga dhisay degmada Garbaharey iyo meesha garoonka ciyaaraha loogu talagalay sida arkaysaan calaamadaha la idin diibay waa calaamkii maamul goboleed ku sawiran yahay in dawladdu ay doonayso in ay sare u qaado maxaan ku ilaahay dawladnimada inay rabto inay shacabkeeda gaarsiiso way sare u qaado waxa guriga loo dhisay sidaa weyn waxaa munaasabadan loo qabtayna waxay ku xusan tahay calaamadda idinku qorano waa maalgeli dhalinyarada mustaqbalkooda. Warsame Xaaji Faarax raadiyaha iyo TV-ga dowlad goboleedka Koonfur Galbeed madaxa Garbaharey ee xarunta gobolka Gadow.